aniga waa korneel ciid cabdi xasan waxaan shacabka deegaanka u sheegayaa inaan dhisnay xisbi magaciisu yahay Somali Liberation Front ujeedooyinka loogu baahday xisbigan waxa weeyaan ka samata bixinta shacabka deegaanka dhibaatada ku habsatay guud ahaan inaan dalka ka samata bixino dawladda Abiy Ahmed ee faashistiga ah iyo midda uu deegaanka xooga military ku keenay ururka sida magaciisa ka muuqata waa urur ka turjumaya dhammaan deegaanka Soomaalida qaab dhismeedkiisa 93 degmo 12 gobol iyo 6 ismaamul magaalo oo aan ku leenahay taageerayaal badan iyo xubno noo jooga aan ka dhisnay ilaa iyo heer tuulo waxa kale oo aan taageerayaal badan ku leenahay dalka dibaddiisa iyo gudihiisaba qaab dhismeedkiisuna ka jira ururkan waa urur aaminsan nidaamka federaalismka qoomiga ah una taagan danaha shacabka Soomaalida lana xisaabtami doona dawladda faashistiga Abiy Ahmed dhibaatada deegaanka ka geysatay dhinaca kale waxaan cambaaraynaynaa dawladda Abiy Ahmed xasuuqa iyo isirsifaynta aan adduunka lagu arag ee uu geysatay shacabka Tigreega gaajada iyo kufsiga hubka ahaanta ugu adeegsaday waxaan soo dhaweynaynaa heshiiska ay wada galeen ciidanka xoreynta Oromia iyo TPLF baaqan waxa idinla wadaagaya anigoo ah gudoomiyaha xisbiga xoreynta shacabka Soomaalida Korneel Ciid Cabdi Xasan